soo dhowow daawade maanta waxaan doonayaa inaan kuu sharaxo laba howlood oo muhiim u ah muuqaal samaynta gaar ahaan marka la duubayo muuqaalada labadaas waxaa lagu kala magacaabaa 180 rule iyo rule of thirds labadaas waxaa loola jeedaa habka kaamiradaha loo sadgaraynayo iyo sida muuqaalka loo duubayo aan ku horrayno 180 rules marka qofka waraysi laga qaadayo ama wax laga duubayo qof hadlaya waxaa muhiim ah la waraystaha iyo waraystuhu in ay kafool isku eegaan oo ay kuraastooda iyo wejiyadooduba isku beegnaadaan marka ay sidaa isaga soo horjeedaan labada kaamiro ee kala duubaya labada qof waxaa la dhigayaa dhinac isxiga oo ah 180 digrii in ay kaamiradu ka xigaan labada qofba waxaa loola jeedaa in ay isku dhinac xigaan oo aanay dhinaca kale ee wareegga aysan u tallaabin haddii kaamirada halkaa la dhigo midda labaadna xaggan kale la dhigo waxaa buray sharcigii 180ka sababtoo ah 180ku waxa uu ku saxan yahay sidan oo labada kaamiraba hal dhinac ayay xigaan aan si kale kuu fahansiiyo haddii qofka koowaad aad kaamirada ka dhigtid dhanka bidixda qofka labaad ka dhig dhanka midigta waxa sidaa loo yeelayaa waxaa weeye kow waxaa la doonayaa marka hore kaamiradu inay wada qabato qofka wejigiisa oo dhammaystiran labo in qofku uusan kaamirada toos u eegin ee uu eego qofka la waraystaha ah kaamiradu iyadoo wejiga ay wada hayso sidoo kalena marka fiidiyowga la isku dhedgaraynayo in labada muuqaalba ay sahlanaato inay u ekaadaan inay is eegayaan oo ay wada hadlayaan sharcigaas waxaa la yidhaahdaa 180 haddii uu kaa buro muuqaal qurux badan kuma soo baxayo rule of thirds waxaa loola jeedaa marka aad cid wax ka duubaysid freemka ama shaashadda qofka duubaysa maskixiyan u qaybso 3 qaybood layman sidan oo kale ah ku cabbiro adiga oo maskaxda ka isticmaalaya dabeetana waxaa muhiim ah in qofku dhanka uu eegayo uu isbays ka bannaanaado oo ay sidaas u bannaanaato waxaa sidaa loo yeelayaa waxaa weeye in ay muuqato in qofkan uu cid la hadlayo oo ay jirto qof waraysanaya maxaa yeelay lama oggola in la waraystuhu uu ka soo muuqdo santarka ama bartanka shaashadda oo waxaa halkaa iska leh soo jeediyaha ama baresentarka mahadsanid